بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي هبون خيارتا أودا naga dhageysanaysa idilhantiin ba meel walba iyo goob walba naga dhageysanaysaan si walba noo dhageysanaysaan raadiyaha midnimo ayaad la socotaan oo toos idinkaga imaanayo stuudiyaha koowaad ee Nairobi muujadaha kala duwan ayaad nagala socotaan aaladaha tibinta tooska ayaad naga dhageysanaysaan isnoqod wanaagsan isbaqal wacan oo wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysada iyo waxyaabaha ay qoraan oo hadaha iyo kale aad ka dhageysataan idaacadda midnimo mideynta bulshada waxaana barnaamijka ku soo qaadan doonaa warbixino maqaalo iyo faalooyin xiiso badan oo ay daabaceen wargeysada maxalliga ee dalkani Kenya ka soo baxo siiba wargeyska Nation iyo sidoo kale The Standard oo alaaba ka soo baxo dalkani Kenya isla markaana aad kaga bogataan warbixino kala duwan masalooyinka xisaab badan oo ay qoraan wargeysada ka soo baxa caasimadda Nairobi ayaad barnaamijka kaga bogataan ugu horreyn waxaan soo qabanayaa haddii Allah awooda laga helo warbixinta koobaad ee uu soo daabacay wargeyska gacanteeda ku jira ee The Daily Nation boga koobaad wargeyska waxa uu isagu ku faahfaahinaya isla markaana ku qaada dhigaya qormo ku saabsan dib u furka goobaha waxbarashada diyaargarowga ardayda xilli sidoo kale qayb ka mid ah ardayda loo ogolaaday in ay dib ugu laabtaan goobaha waxbarashada wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka Professor George Magoha ayaa sheegay in ardayda qaar ay shalay dib ugu laabteen buu yiri wargeyska dugsiyada waxaana casharada dib u bilowday ardayda fasalada afraad iyo sideedaad ee dugsiyada hoose dhexe iyo waliba kuwa dhigta fasalka afraad ee dugsiyada sare hasaatee waxa soo baxaya warar sheegay inay jiraan arday aan shalay fasalada iska xaadirin maadaama ay walaac ka qabaan badiqabkooda Magoha ayaa xilli uu tagay dugsi ku yaalo ama dugsiyo tiro badan oo ku yaala deegaanka Kibra ee ismaamulka Nairobi waxa uu sheegay in macallimiinta laga doonayo inay xaqiijiyaan badiqabka ardayda iyo in ay xiran yihiin maskarada sanka ee afka lagu xidho ee afka lagu daboolo isla markaana looga hortago neefta didiyowga kale si aan la isku qaadsan cudurka corona waxa uu dhanka kale shalay waalidiinta caruurta fasalada kale ee aan wali dib ugu laaban dugsiyada kula taliyay in ay u diyaar garoobaan dib ugu laabashada goobaha waxbarashada hal ama laba toddobaad gudahood waxa hoosta ka xariiqay in wasaaraddiisu ay kormeeri doonto dugsiyada kale isla markaana ay hal amaba laba toddobaad qiimeyn doonto kadibna ay go'aamin doonto in ardayda fasalada kale ay dib ugu laabtan karaan xarumaha waxbarashada iyo kale waxuu sidoo kale waalidiinta ku booriyey in aysan ka welwelin caruurtooda oo ay joojiyaan fikradaha khaldan isagoona kula taliyay inay joojiyaan booqashada iskuullada haddii aysan jirin xaalad degdeg ah waalidiinta ayuu wasiirka ka codsaday in haddii ubadka ay qabaan xaalado dabadheeraaday ay ku wargeliyaan maamulada iskooladaasi ardayda iyagu la nool cudurrada kale ee gaarka ah ayuu ugu baaqay waalidiinta in ay ka warqabaan lana socdaan maamulada dugsiyada ayuu ku booriyay inay sameeyaan guddi gaara oo ka hortaga saameynta cudurka corona si looga fogaado isu imaatinka ardayda iyo shirarka macallimiinta waxuu ku amray inay diyaariyaan liiska ardayda qaba xanuunada gaarka ee u nugul cudurka coronavirus Magoha waxuu sidoo kale ku baaqay in gabdhaha uurka qaaday xilligii goobaha tacliinta xidhnaayeen inay dib u bilaabaan waxbarashadooda waxuu dhanka kale maamulayaasha dugsiyada jiifka ama boardingka ka codsaday inay xaqiijiyaan ardayda laga diirin aan iraahde iskuulka sabab la xiriiro lacagta fiiska amaba laga eriyin iskoolka sabab la xiriiro lacagaha fiiska kuwa sida gaarka loo leeyahay amaba kuwa dawliga oo isagu amarkaasi uu u jeediyey goobaha waxbarashada ee sida gaarka loo leeyahay buu leeyahay wargeyska ayuu ka codsaday in aysan takorin ardayda qaar ee aan ka qaybgelin casharada ay ku bixinayaan qaab online waxuu dhanka kale carabka ku dhiftay in casharada laga sii wadayo halkii lagu joojiyay bishii Maarso ee sanadkan xilligaasi oo goobaha waxbarashada albaabada la isugu dhiftay si looga hortago faafitaanka cudurka corona madaxa wasaaradda tacliinta dalka ayaa waxuu sheegay in inkastoo ay adag tahay xaqiijinta kala fogaanta ardayda haddana aan tani awgeed caruurta lagu hor istaagi karin in ay dugsiyada ku laabtaan xogayaha wasaaradda tacliinta dalka Bilio Kipsang ayaa dhankiisa waxa uu xusay inay qasab tahay in dhammaan macallimiinta iyo ardayda isticmaalaan maskarada waxa uu Magoha iyo wasiirka wasaaradda tacliinta ee dalka Nairobi Magoha wuxuu sheegay in dawladda ay si lacag la'aan maskara ugu qaybin doonto kaliya ardayda ka soo jeeda qoysaska danyarta waxa uu hay'adaha kala duwan ka codsaday inay gacan ka geystaan sidii qaybaha dugsiyada ee shalay dib u furmay loo gaarsiin lahaa agabkaasi loo isticmaalo in lagu daboolo wejiga iyo afka gaar ahaan sanka iyo afka ee loo yaqaano afxidhka dugsiyada ayaa shalay dib loo furay waxaan la xiri doonaa 23 bisha December sanadkan ardayda ayaa kala orod ugu jira sidii ay iyagu u baadigoobi lahaayeen buugaagtii iyo casharadii iyagu ay qaadanayeen xilli sidoo kale isla sanadkan gudihiisa lagu wado in ardayda qaar imtixaanada ay u fariistaan isla markaana imtixaanada kuwa tijaabada ardaydu laga qaado
haddaba dowladdu waxay sheegtay in taamka labaad amaba xilli dugsiyeedka labaad ee taamtuuga loo yaqaano in ay dowladdu sheegtay in uu bilaabanayo ama uu bilowday 12 Oktoobar kuna eg yahay 23 Disembar. ardayda ayaa waxaa la fasaxi doonaa 23 bisha Disembar ee sanadkan, waxaana ay iyagu dib iskoolada ugu soo laaban doonaan 3 bisha Janaayo. sidoo kale xilli fasaxeedka waa xilli dugsiyeedka saddexaad ee loo yaqaano term 3 sanada 2021 waxa uu bilaabanayaa 4 Janaayo, waxaana uu dhammaanaya 19 bisha Maarso. waxaa ardayda ayaa u fariisan doonaa 22 bisha Maarso ilaa 24 bisha Maarso imtixaanada qaran ee shahaadiga ee dugsiyada hoose dhexe ee fasalka 8aad ee KCPE-da. sidoo kale ardayda markaasi fasalka afraad ee dugsiyada sare 25 bisha March ee sanada 2021 ay u fariisan doonaan iyagoo dhammayn doona ama qalin jebin doono 16 bisha Abriil. dowladda ayaa kadib waxay fasaxi doontaa ardayda 19 bisha Abriil, waxaana ay dib ugu soo laabanayaan goobaha waxbarashada 5 bisha May. haddaba qaabkaasi ayaa loo jaangooyey jadwalka sanad dugsiyeedka 2020 ilaa 2021. waa hagaag akhyaarta qiimaha qadarinta xushmada naga mudan, weli fari kama qodno, waxaad la socotaan barnaamijka wargeysada waxay qoreen qormooyinka ay daabacaan shabakadaha iyo jariiradaha ka soo baxo dalkani Kenya. oo warbixintaasi waxaa ka faaloonaya isla markaana qaadadhigaya wargeyska gacanteeda ku jira The Daily Nation, waxaana saaka ka dalacan kartaan bogga 8aad 9aad bogga 7aad ilaa bogga 9aad oo warbixintaasi lagu faahfaahiyey. qaybaha kale ee warbixinada jaraa'idka uu soo qaatay ayaan eegaynaa. warbixin waxaa jirtay bogga koowaad uu jaraa'idka ku soo bandhigay qayb ka mid a hordhaceeda, balse uu ku faahfaahiyey kuna qaadadhigay aakhirka ama gabagabada bogga markaasi ugu dambe ee wargeyska gacanteeda ku jira The Daily Nation. warbixintan waxay ku saabsan tahay shirkad fadhigeedu yahay dalka UK oo lagu magacaabo Tesco oo iyadu hakisay afakaadhada looga dhoofin jiray dalka Kenya. haddaba shirkadda ugu weyn ee laga dukaamaysto ee Tesco, taasi oo ku taalla dalka UK, waxay sheegtay in ay hakisay afakaadhada ay ku keenayeen amaba ay u dhoofin jireen beeraley Kenyaan halkaasi. tani waxay timid kadib markii ay ku eedeeyeen inay ku dhaqaaqeen xadgudub ka dhan aadanaha. 79 qof oo Kenyaan ah oo la soo taagay maxkamadda sare ee UK, kuwaasoo lagu eedeeyey in shirkad yar oo lagu magacaabo Kakuzi ay shaqaaleysiisay ilaalo amni, taasi oo lagu tilmaamay xadgudub weyn. haddaba shakhsiyaadkaasi Kenyaanka waxaa sidoo kale lagu eedeeyay inay geysteen dil, kufsi, weeraro iyo weliba xabsi been abuura. shirkadda Kakuzi ayaa afakaadhada waxay u dhoofin jirtay dhowr dukaamo oo ku yaala waddanka UK, sida uu qoray wargeyska The Daily Nation oo saaka faahfaahinaya warbixintan. waxaa ka mid ah shirkadaha heli jiray afakaadhada Tesco iyo weliba Sainsbury oo ka mid ah shirkadaha inta badan ku caanbaxay dhoofinta agabkaasi. jaraa'idka ayaana soo qaatay warbixintaasi, waxaana uu ku faahfaahinayaa bogga ugu dambe ood ka heli kartaa dhegeystayaal. saaxiibayaal, bal qodobada kale ee jaraa'idadu ay soo qaateen ayaanu sii wadeynaa. xubintaasi waxaad kaga boganaysaan oo bogga dhexe inoogu daabacay bogga ugu dambe neerahada wargeyska The Daily Nation. bogoga kale qodobada saaka ku xusan ayaanu sii wadeynaa. caabuqa corona, jaraa'idka uu ka hadlaya wuxuuna leeyahay wejiga labaad ee cudurka coronavirus ayaa waxa uu iminka ku bilaabanaya deegaanada gobolka xeebta iyo sidoo kale magaalada Nairobi, xilli kiisasku ay cirka isku shareerayeen. shalay 73 qof ayaa laga helay cudurka corona. tirada guud waxay gaadhay 44619, waxaa ka caafimaaday 97 qof. tirada dadka ka bogsooday waxay gaarayaan 30997, halka ay u geeriyoodeen xanuunka corona 11 bukaan. dhimashada guud waxay gaadhay 777. jaraa'idka ayaana soo qaatay qodobkaasi. waayahay qodobada kale ee jaraa'idadu saaka ay soo qaateen ayaan weli bartamaha kaga jirnaa. dowladaha Kenya iyo Ingiriiska ayaa sanadka 2021 si wada jira u qabanaya shir lagu tilmaamay mid heer sare. kulankan ayaa la filayaa in qodobada ka soo baxo ay fududeeyaan in canug kasta oo caalamka ku nool uu waxbarasho helo. fayraska corona ayaa saameyn ku yeeshay 1.3 bilyan oo caruur ah oo ay ka mid yihiin 650 milyan oo gabdha. khubarada tacliinta ayaa sheegaya in ay suurtagal tahay in arday badan
aysan dugsiyada dib ugu laaban maadaama shacabka ku nool wadamo badan ay wajahayaan caqabado dhaqaale sida jaraa'idka uu qaada dhigaya saaka. waanu sii wadeynaa dhegeystayaal, waxaan filaya warbixintaas inaad ka hesheen isla haatan aad wax badan ka ogaateen. wargeyska maxalliga ee The Daily Nation ayaana saaka boggiisa dhexe inoogu daabacay. haddaba jaraa'idka waxuu soo xigtay warbixino kale oo uu isagu kaga hadlayay amuurahaasi. hore ayaan usii wadeynaa dhegeystayaal qodobada kale ee jaraa'idadu ay soo qaateen oo aan weli bartamaha kaga jirno. wakiilada baarlamaanka kountiyada ee kala duwan ee dalka MCS-ka loo yaqaano ayaa la sheegayaa in ay qaateen lacago badan oo gunooyinka loo yaqaano kuwa sitting allowance-ka oo xilliyada kalfadhiyada ay socdaan la siiyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta dalka bilihii lasoo dhaafay iyadoo dalka uu ka jiray cudurka corona. warbixin uu soo saaray xafiiska maamulaha miisaaniyadda ayaa lagu sheegay in bishii abril iyo weliba bishii juun ee sanadkan ay qaar ka mid a MCA-yada kountiyada kala duwan ay qaateen gunooyin badan oo iyagu ah kuwa sitting allowance-ka loo yaqaano. warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in kala bar wakiilada iyo afhayeenada baarlamaanka ee dowladaha kountiyada ay kordhisteen lacagaha gunooyinka ay qaataan xilligan oo dalka uu ka jiro cudurka corona. 7 ka mid a baarlamaanka kountiyada ayaa lasoo sheegayaa in ay laba jibaareen lacagaha gunooyinka ay qaataan MCA-yada iyo weliba afhayeenada baarlamaanka. wakiilada baarlamaanka ee ismaamulada Samburu ayaa iyagu la sheegay in wakiil kasta oo baarlamaanka ka tirsan inuu bil kasta qaadanaya lacag guna oo gaarayso 423,409 aan yiraahde kuwa laga soo bilaabo bishii Maarso ee sanadkan, halka horaan halkii MCA uu qaadan jiray lacag guna gaaraysa 20,317 oo shilinka dalka. haddaba kountiyada kale ah Marsabit, Nandi, Machakos, Kajiado, Kirinyaga, Nyeri, Migori, Kisumu, Bungoma, Kiambu, Siaya, Kwale, West Pokot ama koonfurta ama aan yiraahdo galbeedka Pokot, Baringo, Uasin Gishu, Nairobi, Kilifi, Makueni, Kericho, Nakuru, Taita Taveta ayaa iyagu la tilmaamaya in qaar ka mid ah wakiiladaasi ay kordhisteen lacagaha gunooyinka bil kasta ay qaataan. dhinaca kale kountiyada kale Tana River, Turkana, Homa Bay, Laikipia iyo kuwo kale oo fara badan ayaa iyaguna la sheegay in wakiiladaasi ismaamulada ay hoos u dhigeen lacagaha gunooyinka oo ay bil kasta qaadan jireen. tani waxay ku soo aadaysaa iyadoo warbixintan ay soo saartay hantidhowraha guud ee dalka Margaret Nyakango lagu sheegay in sanad miisaaniyaedka 2019-2020 ay baarlamaanada amaba ay iyagu baarlamaanada kountiyada lacaga dhan 2.17 bilyan oo shilinka dalka ku bixiyeen gunooyinka kalfadhiyada ee loo yaqaano sitting allowance. jaraa'idka ayaana qaybo ka mid a warbixintaasi soo qaatay. saaxiibayaal, wargeyskan Nation ka soo baxay magaalada Nairobi ayaa warbixintaasi wax ka qorayay. waa ka gudbeynaa dhegeystayaal. hagaag dhegeystayaal, saacaddu waxay tilmaamaysaa 7:56 fare kama qodno. weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka wargeysada waxaa qoreen oo gorahan oo kale aad ka dhegeysataan raadiyaha midnimo mideynta bulshada. meel kasta iyo goob kastood naga dhegeysanaysaan, si kastood noo dhegeysanaysaan, jaraa'idada waxyaabaha ay soo bandhigeen ayaad la socotaan. saaxiibayaal dhegeystayaal, ilaa aakhirka barnaamijka laga gaarayo weli fare kama qodno qeybihiisii ugu dambeeyey ayaanu kusii wajahanahay. goordhow waanu ka gudbi doonaa qeybahan jaraa'idka gaar ahaan The Daily Nation. The Standard isagu si lamid ah sida wargeyska gacanteeda ku jira Daily Nation ayuu isaguna ka hadlayaa amuuraha waddanka, waxaana uu soo qaatay qodobo tiro badan oo ku saabsan goobaha waxbarashada oo shalay dib loo furay xilli arday tiro badan la sheegaya in aysan soo xaadirin fasalada. dowladda ayaana u kuurgelaysa qaar ka mid a ardayda iyagu u diyaargaroobayo goobaha waxbarashada, waxaana taniyo shalay dowladdu ay ku howlaneed sidii jawiga ardaydu ay wax ku baran lahaayeen uu u noqon lahaa jawi wanaagsan oo kala dambeyn iyo weliba kala fogaansho fara badan laga dareemayo. haddaba qaybo ka mid a goobaha waxbarashada dib ayaa loo furay shalay
xilli 7 bilood ee lasoo dhaafay ay xidhnaayeen sabab la xidhiidha cudurka corona waxayna kiisaska ardayda kusii qulqulayeen anirahdii waxayna shalay ardayda ahaayeen kuwa markaasi kusii qulqulaya goobaha waxbarashada caqabadaha ilaa iyo hadda lasoo sheegay waxaa ka mid ah in dugsiyada qaar aanay helin amaba lahayn biyo lagu gacmo dhaqdo tallaabadaasoo ka mid ah kuwa ay soo jeedisay wasaaradda tacliinta iskuullada qaar weli lama furin sababtoo ah waxaa la sheegay in suuliga oo yar iyo ardayda oo tiraba ahaan aad u badan si looga fogaado in ardaydu ay hal meel isugu tagaan macallimiinta ayaa go'aansaday in ay amaba sii xidhnaadaan xarumahaasi waxbarasho kala fogaanshaha ayaa ah dhibaatada ugu weyn ee ilaa iyo hadda lasoo warinayo walow iskuullada qaar ay bilaabeen in fasalada kale ee bannaan ay u fasaxaan ardayda inay kusii akhristaan inta ay ka soo laabanayaan ardayda kale iskuullada qaar waxaa ardayda loo qaybinaya maaskaro halka ardayda qaar ay la imaanayaan balse taasi micnaheedu maahan in dhammaan ardayda ay wada xidhan yihiin afxidhka taasi oo caqabadaha kale ee lasoo tabinayo taasi marka laga soo tago iskoolada ku yaalla gobollo ay ka mid yihiin gobolka Nyanza iyo Rift Valley ayaa xidhan maadaama ay biyo dhaafiyeen fasalada islamarkaana fatahaado ay ku rogmadeen goobahaasi waxbarasho wargeyska The Standard ayaana isagu qaadadhigaya qormooyinkaasi waxaan filayaa warbixintaas inaad ka hesheen saaxiibayaal isla haatan wax badan aad ka ogaateen jaraa'idka ayaana soo xigtay warbixinno badan oo saacadihii aanu kasoo gudubnay ku saabsanaa dib u furitaanka goobaha waxbarashada guud ahaan dhegeystayaal halka ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii wargeysada iyo waxa ay qoreen oo aad ka dhegeysanayseen raadiyaha midnimo mideynta bulshada barnaamijka waxaa idiin soo saaray oo idinla socodsiinaya isku soo dabraday halkan idinkaga farsameynaya anigoo cabdiraxmaan sheekh yuusuf cabdiraxmaan jey tani ismaqalkeena xiga intaaynu barnaamij ka la mid ah maalinka berri dib dambe hawadagooda kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu